aanu ka helino magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar ah oo ah maamulka Jubbaland ahna magaala madaxda ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay qarax weyn oo laga maqlay gudaha magaalada oo idil sida ay noo xaqiijiyeen dad ku sugan magaalada Kismaayo cali waxa la sheegayaa in qarax uu ka dhacay hotel Madiina oo horey la oran jiray Cascasi iyo Maamus kaasi oo ka agdhow baaleeray argada magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa la sheegay in lagu dhuftay iridda hotelka waxayna goobjoogayaashu ay noo xaqiijiyeen inuu xigay dagaal toos ah oo kooxdii hubeysnayd ay ku qaadeen si ay u galaan gudaha hotelka risaas xoogan ayaa la soo warinayaa in waqtigan ay ka socoto gudaha hotelka maadaama kooxdii weerarka soo qaaday ay u suura gashay inay gudaha hotelka u dhaadhacaan hotelka weerarka lagu qaaday waxaa degnaa dad shacaba iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Jubbaland waxaana la sheegay inuu ahaa mid mashquul badan oo bulsho badan ay ku kulmaan amba ay ku caawiyaan magaalada Kismaayo caawa waa ay ka duwan tahay sidii hore waayo waxaa jirta baqdin iyo cabsi badan oo dhanka shacabka ah gaar ahaan dadka ka agdhow goobta la weeraray waqtigan risaasta iyo sidoo kale qaraxyadu ay ka dhacayaan al-shabaab waxay baraha bulshadooda ee wararka ay ku baahiyaan ay ku sheegeen in ciidamo ka tirsan ay gacanta ku hayaan hotelka isla markaana ay halkaas ka wadaan toogashada mas'uuliyiinta Jubbaland iyo kuwa dawladda Soomaaliya ee hotelka ku sugnaa sida ay wararka u dhigeen ilaa hadda qasaaraha la og yahay ayaa la soo sheegay in weerarka uu ku geeriyooday Axmed Xaashi oo kamid ahaa xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya iyadoo sidoo kale la soo sheegayo inuu jiro qasaare kale oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo xogta rasmiga aan la haynin xogta dhabta ay qasaaraha ogaanshaheeda ayaa waxa xanibaya waqtigan maadaama xilligu uu yahay gudcur dagaalyahanadii weerarka qaadana ay ku sugan yihiin gudaha hotelka oo wali ay ka dhex dagaalamayaan magaalada Kismaayo cali waxaan ogsoonahay inay xudun muhiim u tahay maamulka Jubbaland ayaa waxa ka socda qabanqaabada doorashada iyadoo hotelada magaalada qaarkood ay degan yihiin musharaxiinta u taagan hogaanka maamulka Jubbaland